salaan kadib magacaygu waa maxamed oo jooga muqdisho wuxuu habeen baan ku dhaartay magaca ilaahay oo aan idhi muslim ma ihi haddaan waxaa sameeyo wixii haddaan sameeyo maxaa xukunkeedu noqonayaa maxaad sheekh igula talin lahayd inaan sidee u toobad keeno su-aasha saddexaad waxaa jira magacaygu waa xamda joogta hargeysa sheekh qofku markuu tukanayo oo uu sujuudda maalan aan sujuudo waxa ku sabaysantada tiri wejigayga bar madow bartaa madow aniguna waan fool xumaystaayo waxaan isku dayaa inaan iska baabi'iyo marka raadkaa sujuudda aan tirtirayo maxay shareecada islaamku ka qabtaan su-aasha afraad magacaygu waa aasiya joogta hargeysa waxaa tiri qofku markuu ku tukan kari waayo taagnida uu jilba xanuun iyo waxaa ka cabanayo ama sujuuddii ay dhibayso haddii salaada qaybna uu taagni ku tukado qaybta sujuud iyo rukuucda markuu soo gaarana kursi uu ku fadhiisto sujuuddii iyo rukuucda uu ishaaro salaadiisaasi sax may u noqonaysaa su-aasha shanaad salaan kadib way tiri magacaygu waa faadumo waxaan joogaa dalka Sweden waxay tiri su-aasheedu waxay tahay markaan salaada u istaago qalbigaygu meel kale u tagaa salaaddii waan tukanayaa laakiin niyadeydu ma joogto maxaad sheekh igula talin lahayd maxaan sameeyaa su-aasha lixaad waxay tiri wuxuu yidhi magacaygu waa abubakar ibraahim oo jooga waddanka Germany wuxuu yidhi anigoo muslim sunniya ah ma ku tukan karaa masaajid ay leeyihiin muslimiinta shiicada ahi sheekh maxamed lixdaa su-aalood ninkaa sheegay inuu ku dhaartay gaalnimo maxaa waajib ugu abuuri inaad ilaahay u toobad keenta ayaa kugu waajiba kafaara gudda aad bixisan maadaama magacii ilaahay aad ku dhaaratay waxaa magacii ilaahay intaa iga yihi gaal baanay haddaan waxaa sameeyey buu labadaasu israaciyey marka qofku haddii uu ku dhaarto gaalnimo waxa waajibku ah inuu ilaahay u toobad keeno dembi iyo gaf buu ku dhacay waxaana laga doonayaa kafaara gud mar hadduu magaca ilaahay carabkiisa soo mariyey labadaasaa israacinaysaa towbad wanaagsan oo aana dib ugu noqonin ku dhaarashada gaalnimada aad ku dhaaranayso wax lagu dhaarto maaha iyo adiga oo maadaama magacii ilaahay aad ku dhaaratay kafaara gud bixiya masaakiintii 10 kaabaad wax siinaysaa hal mar dherginaysaa haddaad weydana 3 cishaad soomaysa madowgan wejiga sujuuddu ayna madoobaata markaynu sujuudno ama calaamaddaa wejiga inaga samaysanta ma sheegayso qofku inuu mukhlis yahay ama cibaadadiisu daacad tahay ama calaamadii qur-aanku uu sheegay siimaahum fii wujuuhihim taa ma aha culimada tafsiirku kumay fasirin waa iftiin kale oo uu qofku leeyahay muuminkii maalinta qiyaamaha ilaahay wejigiisa ka muujinayo marka calaamadaas qofna way ku samaysantaa qofna kuma samaysanto waa sida loo kala maqaar jilicsan yahay bay ka dhigantay wax dhiba ma laha inaad iska masaxdo oo aad wejigaaga caadi ka dhigto dhib kuma jiro salaadayda marka aan tukanayo waxa igu adag inaan fadhiisto oo aan jilbaha laabe ee sarajooga intaan ku tukado qaybta dambena hoosena fadhiga ma ku tukan karaa haa rasuulku sallallahu alayhi wasallam Imraan ibn Husayn oo weydiiyay marka uu buka sidoo u tukanayo wuxuu salli qaa'iman fa in lam tastadi' fa qaa'idan fa in lam tastadi' fa ala janbin sarajooga ku tuka hadaad kari weyda fadhiga hadaad kari weydana jiifka labadii saraad karaysaa imaka sarajoogi waad karaysaa fadhigiina waad karaysaa labadaasaad ku tukanaysaa kol haddaad dhulkii tegi kari weyday markaa sujuudda iyo rukuucdana waad sii kala hoosaysiin insha allahu fattaquu llaha ma stadactum ilaahay addoomaha wuxuu faray inay ilaahay ugu cibaadaystaan intay kari karayaan sujuuddaa kale odhanaysa marka arrintaa su-aasha kale odhanaysa markaan salaada ku jiro waan xawilanahay ama waa yaro baxayaa salaadaydii miyay buraysa buri maysa laakiin khushuucdii baa kaa tagto ajrigaagu ma badna ilaahayna wuxuu ammaanay awliyadiisa iyo muuminiintu markay salaada ku jiraan way khushuucsan yihiin khushuucdana macnaheedu waxa weeye qofku waa inuu ismaqlayo inuu ilaahay hor taagan yahay og yahay soo jeedo qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ma khushuucin qof iska xawilmay ilaahayna kamaad xushoon dee adigoo hor taagan inaad meelo kale iska marayso waxaad tukatayba aanad garanayn shaydaankii baa kaa xoog batay markaa salaaddii way ansaxaysaa laakiin ku dadaal naftaada inaad khushuucda barto oo dhammaanteed waa mushkiladina haysatee aynu markaa ku soo celinno khushuucdii su-aasha kale waxay ahayd ma lagu tukan karayaa masaajidada shiicada salaada ها waa lagu tukan karayaa wa anna almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada
masjidka ilaahay baa le kol haddii aad ilaahay caabudayso waad ku tukan karaysa iyagu hadday salaada si qaldan u tukanayaan uun baanad ku xidhanaynin laakiin masjidkii shiica dhistay maaha kii gaalku dhisay ayaa culimada islaamku ay ku tageen in lagu tukanayo xataa mararka qaarkood hadday kugu qabsato inaad kaniisadda ku tukan karto ayay a'immadu ka warramayeen mar haddaad ilaahay u tukanayso aanad sanam iyo wax kale u tukanaynin wallahu aclam jasaa allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala inagu anfaco sheekhna ka abaaliyo su-aalaha waxaynu soo gaarhnay qaybtii ugu dambeysay ee u badnaa arrimaha bulshada wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray sheekh waxaa soo baxay beryahan dambe xijaab laga dhigay xijaab casri oo faashiyoona waad odhan kartaba malaha shalmadihii hore dumarkeennu huwan jireen ayaa dhaamo quruxda gabadha muujinaya marka xijaabkaas xukunkiisu muxuu yahay su-aasha labaad sheekh su-aasheedu waxay tahay buu yidhi waxaan leeyahay reer kalena inaan sameeyaan rabaa marka xaaskii haddaan u sheegay xaaskaygii hore waxay tidhi warqaddii horta isii haddaad reer kale igu dul samaynayso arrintaas sheekh maxaa xukunkeedu iyadana yahay rooda oo joogta berbera waxay tihi waxaan maqlay haddii wiil aad walaala tihiin oo hooyada ay dhashay uu joogo kuma meherin karo mid aad isku aabba tihiin marka arrintaana maxaa ka jira su-aasha afraad waxay tihi wuxuu yidhi ninka soo qoray xaaskaygii ayaan furay ama aanu kala tagnay 4 bilood ka hor hal dalqadna waan riday dalqada horena igama dhicin inaan soo ceshadaan doonayaa sidaan u soo ceshan karaa su-aasha shanaad waa khadra oo joogta hargeysa waxay tidhi sheekh waxaa jira dad markay shaqada ka tagaan ama iskuullada ha u shaqeeyaan ama shaqooyinka kale iyo ganacsiga ka shaqeeyaane meeshii markay ka tagaan ama laga eriyo xuquuq soo raadsado idhaa xuquuq baanu leenahay ama wasaaradda iyo wax taga ama meelo kala taga oo xuquuq raadsada arrintaa diinta islaamku maxay ka qabtaa sheekh maxamed haddii masaladaa hore aynu dib ugu yaro noqonnee ka warramaysa shiicada iyo masaajidadooda waa markaad meel kala weydo haddaad helaysa dee masjid dadka sunniyiintu ay leeyihiin ama imaamkiisu wanaagsan yahay dee kaasaa tegaysa kaasaana fiican qofku inuu ku dadaalo masjid sunni ahoo imaam fiican tukinaya intaad helayso midda ama khuraafaad wadaa ama wax kale lagu hayo ama laga shakisanya inaad tagtaa sax maaha waa laga fiican yahay xijaab khafiifa baa jira baa su-aashu ay leedahay xijaabku shuruuduu leeyahay sideeda islaamka dhexdiisa marka hadduu shuruudaha yeelan waayo dee xijaab lama idhaahdo iminka hadalka waxa ku jira inuu khafiif yahay mar hadduu khafiif yahay oo aanu jidhkii qarinaynin ama ku dhegan yahay ama jidhkii badhbannaan yahay xijaab lama idhaahdo laakiin dee qofka muslimka ah ee dumarka ah waxa waajib ku ah in ay eegto xijaabkani yahay kii saxda ahaa ma yahay ee shuruudaha sideeddaa lahaa shuruudahana waxaa ugu muhiimsanaa inuu dee waxani ka waasac yahay iyo inaa jidhkii uu asturayo iyo inuu jidhka wada qarinayo shuruudihii dhammayska tirnaa waa inuu leeyahy oo iminka halkan aynaan ka wada akhriyi karaynin qofku dee meel walba kutubahana uu ka akhriyi karayo cajaladahana uu ka heli karayo su-aasha kale ahayd xaas labaad baan doonayaa inaan guursado tii horena ifur bay leedahay maxaan yeelaa dee waxaad yeelaysaa dameerahaad arin ninka dalbada arooriye baa layihi kol haddii aad dagaal tegayso dee dagaalka u diyaargaro oo wixii lagaa doonayna bixi si aad waxu muslixi kartana u muslax hawshaadana si aad u wadi karta u wad dee haddii baqa uu ku hayana islaantaada hore dee iskaga egow warku saasuu ku dhan yahay waayo waxyaabo waxaa jira aan la isu laqimi karin oo masaladu sharci ahaan kol haddii ay wixii yihiin wax bannaan adigu sidaad yeelaysa iyo sidaad reeraha u jamcinaysa iyo sidaad arrimahaaga u fulinayso waa adiga raganimada xaaska hore dee inaad dejiso ood raalli geliso taada dambena ku dhaqaaqdo haddii aad markaa kari karaysa cadaaladii qur-aanku uu shardiga ka dhigay fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida buu ilaahay haddaa ka baqdaan inaa u cadaalad samayn kari weydaan dumarkaa wada qabtaan midiina hore iska wata oo ku egaada marka haddaad cadaaladii kalsoonin ka qabto tallaabadaada dambena waad qaadita horena waad muslaxan doonta iyadoo la ogsoono yahay guurka dambe inuu yahay xaguur ee aanu abaarguur ahayn oo aynu uga jeedno waxbaad kororsanaysa marka wixii aad kororsanayso iyo wixii hore reerkii hore sii jiray dee inaad iswaafajisaa muhiima sharciga iyo xuquuqdana aad ilaaliso iyadana lagama ogolo wixii xadguduba ee xaqeedun bay codsan kartaa su-aasha ah walaalkay oo aanu isku aabbiyo hooyo nahay isaga oo jooga miyuu walaalkay oo aanu isku aabba nahay iguurin karayaa
hadduu walaalkaaga hore yahay mid caadila oo aan ceeb iyo nuqsaan lahayn ee shuruudihii weliga buuxsaday ka isku aabbahatiin kuma guurin karo mar hadduu kaa hore kaalin buuxis yahay waayo wilaayadu waa sidii dhaxalka oo kale oo say culimmadu u badan yihiin dhaxalkana walaalka aabba iyo hooyo markuu joogo ka xagga aabba ma yimaado markaa waxaad ku xisaabtamaysaa in hadduu maala aanu taariku salaad ahayn qof miyir qaba uu yahay oo dhammaystiran kan liabka ama xagga aabbaa isagaa ka horeynaya su-aasha odhanaysa ruuxii dumarka xaaskayga baan furay 2 dalqadood ma ku noqon karaa dabcan xaaska waxaa lagu qabay 3 dalqadood markaa 3dii haddii 2 dhaceen oo midi ay ku hadhan tahay middaasi 3dii unbay la xoog tahay kole day cadad baxday dib baad u mehersanaysa inay markaa 4 bilood laga joogo ayaad xustay markaa kole hadday 3 jeer daahir noqotay ama 3 biloodba ay dhammaadeen haddaanay noocii dhiigga lahaa ahayn oo ay cadad baxday almuhim weligeedii baa ku meherinaya midhna wuu kuugu hadhay su-aasha kale odhanaysa dadka shaqaalaha iyo markay ka tagaa qofka loo shaqeeyaha xuquuq bay ka doonaaneen maxaa ka jira dee waa hadday ku heshiiyeen almuslimuuna calaa shuruudihim buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ama macallin ha ahaado ama shaqaale ha ahaado hadday shaqaalaha iyo loo shaqeeyo wixii ay ku heshiiyeen ayaa heshiiskoodaasi uu ku soconaya markaa kolkii hore waxay ku heshiiyeen hadduu mushaahar intaa leeg ahaa oo markuu shaqada ka tago wax xuquuqoo lagu heshiiyey aanay jirin dee xuquuqu ku leeyahy ma jiro xeerka shaqaalehee caalamiga ahi isaga islaamiya waxaa uma eegaan ee waa waxyaabo kale markaa waxaa loo eegayaa un maxay labada qof ku heshiiyeen haddii aanay waxaan ku heshiinin dee wax qasab ahoo xoog ahoo uu ka qaadayaa ma jiree waxaanay ku heshiinin hadduu doono in walaalkii ka qaadana xaaraan bay ku noqonaysa marka goor waloo la iskhilaafaba sida qur-aanku inoo tilmaamayo waa in labada qof sharciga u noqdaan shareecada islaamka iyada ayaa sheegaysa waxay ku kala baxayaan markay shareecada wax ku kala qaataanna waxaasi waa xalaal wixii aanay shareecadu ogolayn qofka wax ku qaatana xaaraan buu ku noqonayaa wallahu aclam جزاه الله خير إلهي سبحانه وتعالى شيخنا كاباليو ميزانك حسنات كنا هو قدرة إننا هنا نفعه انتاس أيها سؤاله إن يكون يجيهين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.